السلام عليكم waxaan rajeynayaa inaad fiican tihiin maanta waxaan wadaa qiso ka dhacday dalka Kuwait sanadkii 2016 qisadan marka waxay ku dhacday laba qof oo dhalinyaro ah magacyadooda rasmiga ah ama dhabta ah waa la qariyay marka saynu sheekada isula fahamno ama qisada isula fahamno waxaanu soo qaadanaynaa magacyo tobal caara ah magacyada tobal caarada ah Soomaalidu waxay dhahdaa tobal caara waa 7 bari markaynu 7 bari ma haysanayno laakiin daqiiqado yar oo kooban markaynu haysano magacyadaas aynu qisada isula fahamno waxaynu u celinaynaa magacyadan dadkii iska lahaa wiilka waxaan u bixinaynaa Salim gabadhan waxaan u bixinaynaa Salma iyo Salim way yeelanayaan aan bilaabo sidaan sheegayba hore soo sheegayba qisadan waxay ka dhacday mid ka mid ah magaalooyinka dalka Kuwait Salim wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah aad u qurux badan idab leh akhlaaq leh Salim wuxuu ahaa wiilka kali ah ee reerkoodu ay dhaleen wiil iyo gabadhba ilmaha kali ah ee reerkoodu haystaan buu ahaa wuxuu dhigtaa jaamacad maalin maalmaha ka mid ah wuxuu arkay gabadh dhalinyaro ah oo aad u qurux badan lagu magacaabo Salma xaafadooda agtooda guri daris ay yihiin iyadoo ka soo baxaysa gabadhii aad iyo aad buu uga helay muuqaalkeeda markuu arkay aqoonna uma lahayn waxayna ahayd markii ugu horeysay uu arkayo jaamacaddu u socday gabadhanu jaamacadda u socotay waxay wada dhigtaan hal jaamacad laakiin waxay ahayd markii ugu horeysay ay is arkayaan Salim markii ugu horeysay ee uu Salma arkay uu ka helay laakiin gabadha ma yaqaano Salim marka wuxuu ka soo jeedaa qoys danyara oo aan wax badan haysan gurigoodana waxa ku nool isaga hooyadii iyo aabihii Salma waxay ka soo jeedaa reer ladan ama iyaga maxaa la yiraahdaa ka fiican xagga dhaqaalaha markay noqoto reer ladan bay ka soo jeedaa waxa la dhalatay laba ilmood gurigoodana waxa ku nool hooyadeed iyo aabaheed iyo labada walaaladeed ay iyada shanta qof jaamacadii bay isku arkeen way isbarteen marka way is arkaan maalinka wixii ka dambeysay way is arki jireen markay jaamacadda u sii socdaan oo kale jaamacadda dhexdeeda iyadana wiilka markay aragtay way ka heshay Salma sidoo kale waa gabadh dhowrsoon idab leh akhlaaq leh waxbarashada ku fiican gurigoodii reerkoodana ku isman aan ahayn gabdhaha wareega iyo gabdhaha meelaha istaaga midna Salma iyo Salmaan ka helitaan labada dhinac ah oo marka hore Salmaan ku horeeyay ama aan dhihi karaba Salim aan dhaho Salim buu ka soo bilowday aan dhaho ba labadoodaba ka dhaxeeya ka helitaankii wuxuu isku bedelay jacayl labadooduba way is jeclaadeen waxay isku qaadeen jacayl baaxad leh jacaylka iyo xiriirka ka dhaxeeya Salim iyo Salma hooyadeed way ogtahay wayna ku raacsan tahay dhanka kale Salim hooyadii way ogtahay wiilkeedu inuu jecel yahay gabadhan ay dariska yihiin ee ka dhalatay qoyska ladan waa la isla ogyahay labada dhalinyarada inay wada socdaan sanadayr dabadeed markii ay xiriirka bilaabeen Salim wuxuu soo dhameeyay jaamacaddii markii uu saa u soo dhameeyayna wuxuu raadsaday shaqo wuxuu soo helay shaqo fiican uu shaqaystay shilimadii ugu horeeyay shaqadana wuxuu ku doontay Salma waa aabaheedii reerkii uu tagay hooyadii intuu ka haystay Salim markii uu gabadhii soo doontay gabadha aabaheed wuxuu ku yiri gabadhayda waan ku siinayaa laakiin hal shardi baan wataa Salim inta markii uu maqlay farxad buu dareemay wuxuu yiri hal shardi baa hadii lagu xirayo oo gabadha aad dunida u jeceshahay inta ka xigto horaad ka sameynaysaa aabihii Salma dhalay wuxuu ku yiri shardigan wuxuu yahay masaajid waxa jira dariskooda ah masaajidka dariskeena ah imaamka masaajidka u tag waxaad ka soo qaadaa waraaq cadayna maalin walba salaada subaxa inaad ku tukatid masaajidka waraaq cadayna waraaqaha maaragtay la isku yeeriyo iskuulka iyo jaamacadda marka la dhiganayo qofka maqan lagu qoro maalin walba inaad timaadid oo salaada fajriga ku tukatid masaajidka cadaynta ah keen intaas waxay ka xigtaa gabadhayda inaan kugu darsado wiilkii wuu yaabay odayga sharadkiisii ama shardigiisii wuu qariibsaday haddana wuxuu yiri gabadhaad jeceshahay inta ay ka badan baad u samayn kartaa halkii baa lagu soo kala tagay dabadeedna wuxuu bilaabay inuu masaajidkii dhowr bari ku soo tukado ilaan xataa haddii uu hore ugu tukan jiray masaajidkan imaamku waxa laga yaabaa inuusan aad u fiirsan jirin marka wuxuu bilaabay inuu salaada fajriga masaajidkan ku soo tukado isla markaana uu istuso imaamka masaajidka oo salaamo oo arko oo imaamku dhahadee yara waji aqoonsada ayaama dabadeed markuu soo noqdo ayaama markii uu masjidkii ku tukanayay Salim maalinkii dambe imaamku uu tagay uu la fariistay wuxuu ku yiri gabadh dhalinyaro ah jirta oo aan jeclahay waan doontay ehelkeedii reerkoodan ka doontay laakiin waxa la igu xujeeyay in aan keeno waraaqda cadaynta ah oo adigu ii qorto marka waxaan kaaga baahanahay oo ka codsanayaa inaad igu caawiso oo aad ii qorto waraaqdaasi aan gabadha aabaheed ugu geeyo imaamkiina wuu yaabay markii ugu horeysay uu maqlayo waraaq
ordo imaamka masaajidka ka keen qof lagu xujeynaya si gabadh loo siiyo wuxuu ku yidhi waraaq ku qori maayo maxaa yeelay maba garanay inaad masjidka kusoo tukan jirtay salaada subax maalin walba iyo in kale ma garanayo maxaa yeelay dadka unbaad ila mid ahayd aniguna waraaq cidna kuma qoro masaajidka dadka imanaya ma tira koobo marka wuxuu ku yidhi codsigaasu waa maaragtay midaan fulin kara ma aha laakiin haddii wuxuu ku yidhi waddo kale raadsa markaa waddo kale oo gabadhan aabaheed kugu aqbali karo oo kugu darsan karo raadso laakiin waan ku ducaynayaa in ilaahay kuusoo fududeeyo umurahaaga saliim wuxuu bilaabay markaa inuu kasoo tago odaygii markii uu guriga saa ugu soo noqday uu yaro fikirayna wuxuu is yidhi malaha waddada keli ah ee odaygaas kuugu ogolaan karo waalid walba ilmihiisaa wax ka dhameeye waa adigoo gabadha la hadla oo ku dhaha aabbaha naga sasab oo nagala hadal inuu isu keen ogolaado oo isku keen daro gabadhii salmuu soo wacay wuxuu ku yidhi sidaasuu u sheegay inay aabaheed la hadasho inuu odayga mataqaanaa soo sasabto dabadeedna uu isku keen daro gabadhii weli iyadoon u jawaabin markaa oo taleefanka ku jirta baa waxaa taleefanka ka qaaday gabadha hooyadeed salma hooyadeed baa taleefanka qaaday wiilkii bay la hadashay waxay ku tidhi marka maamadu wiilka way jeclay markii hore ay gabadha wada socdeen xidhiirka mararka qaar waxaa dhici jirtay xataa inay habeenada qaar oo kale intay labadooda kaxayso ay casho geyso saddexdood halkaa soo joogaanoo ay ku dhahda 3 ilmaan leeyahay adigu waxaad ii tahay ilmahaygii afraad oo kale dib la-aan baan ku dhalay oo kale laga yaabaan mustaqbalka dhow inaad noqotid wiilkayga oo gabadha iga qaba siday iskugu fiicnaayeen maamadii taleefanka markay ka qabato waxay ku tidhi odaygaygu wuxuu ogaaday adiga gabadhayda xidhiirka idinka dhexeeyey ee sanadaha ahaa anna aan ogaa qalalaasaa guriga yaad ka abuurtay markii aad gabadha soo doonatay kaasoo keenay odaygii xanaaquu xanaaqay inaan u dhowaano inaan isfurayno hadeer oo aniga odaygii waan isku xunnahay marka waxay ku tidhi gabadhaydana ha soo wacanin anna ha isoo wacanin mar dambana agtanada yaanaan kugu arkay taleefankiina waa ku damisay wuu qariibsaday aad iyo aad buu u yaabay walwalna wuu soo food saaro wuxuu is yidhi dee gabadhii ama laguu diidaaba dib aad u heli weydaa dhowr beri ayuu fikirayay saliim wuxuuna go'aansaday inuusan jirin xal kale oo odaygaasi uu gabadha ugu ogolaan karo gabadhii buu wacay dabadeedna wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa inaynu isla baxsanno inaynu aadno meel walba oo ka fog magaaladan aynu hadda ku noolnahay oo waalidkaaga ka dheer oo aynu isku guursanno kuna noolaano maxaa ila xal kale oo horteenna yaalla iyo waddo kale oo aynu mataqaanaa isku heli karnaa ma laha aabbaha shardigu igu xidhay waan fulin waaye imaamkii wuu idiiday waxaan sameeye ma leh haddaan ku soo doontana shardigii la igu xidhay anigoon ka soo bixinna la ikaa siin maayo marka gabadhii waxay ku tiri aabbahay wuxuu qabaa macaan wuxuu kaluu qabaa dhiikar haddii ay dhacdo inaan baxsado oo aynu israacno oon isla baxsanno aabbahay wuu dhiman annama doonaya inaan mataqaanaa dhimashada aabbahay sabab u noqdo marka waxay tiri aabba maadaamuu kacsan yahay hadda weliba aad u xanaaqsan yahay aynu xaaladda dejinno anigu waan ku jeclahay waanaan ku jeclaan doonaa dareenka dhabta ah ee qalbiga kuugu hayana isbedeli maayo qof kalena kugu labayn maayo oo qof kale kaa raaci maayo xataa haddii reerkaygu qof kale ay ii keenaan kugu doorsan maayo kanka waxa yaalle waxa jooga rag kugu doorsan maayo intiibuu marka ku degay saliim waxay ku tiri aynu cagta u dhigno xidhiidhkeenu ha iska socdo dhuumaalays haddaynu ku yara kulmi karno iyo haddaynu taleefon ku dhammaysan karnaba xidhiidhkeenu ha inoo socdo xoogaana arrinta aan dejino ilaa aabbahay qanco oo aad dib iisoo doontid markaa wiilkii wuu qancay ballan bay kala qaateen iyadu waxay ku tiri nin kala guursan maayo qof kugu labayn maayo qalbigayga booska aad ku leedahay inaad ka bixi maysid yani jacaylka aan ku hayo marnama nusqaami maayo inuu ziyaado mooyaane isna inta in leeg buu ku yidhi waan shaqaysanayaa shaqo fiican baan raadsanayaa wax walba oo aabbaha igu aqbali karo hadday noqoto inaan dhaqaalo fiican sameeyo nin wanaagsan baan ahay balwad ma lihi waxba ma lihi laakiin dhaqaalo fiican inaan sameeyo maadaama dhaqaale ahaan ay iyagu ka liiteen saliim iyo reerkoodu ay ahaayeen reer iska dan yara markaa u horreysay isagu shaqaynayeen ay ahayd uusan xoolo fiican hanti fiican tabcanin wuxuu ku yidhi aad baan u shaqaynayaa shaqo wacan baan raadsanayaa waana kusoo doonanayaa xiriirkeennuna wuu sii soconayaa inta aabba degayo arrintu kala degayso dib baana kusoo doonanayaa ballan saasaa lagu galay saasaana lagu kala tegay kadib saliim wuxuu u tegay nin looyar ah wuxuu u sheegay arrinta haysato oo dhan inuu gabarh jecel yahay gabadha inuu doontay in loo diiday shuruudda adag in lagu xujeeyey imaamkiina uu u diiday waraaqdiina uu qoro gabadha uu aad u jecel yahay wax walba uu ku heli karana uu diyaar u yahay marka looyarkaas inuu la taliyo sababaha uu gabadhaa ku heli karayo marka looyarku wuxuu ku yidhi waxaad ku khaldantay markii horeba gabadhan haddii markii u horreysay aad ka heshay waxay ahayd inaad doonatid markaba
haddii lagu diiday haddii lagu yeelo labadaba inaad intaa gabadha jacayl intaa leeg aad u qaado inaad muddada dheer xiriir la yeelato aabaheed iyo reerkoodan ogeyn si gaara maadaama hooyadeed ogeyd aabaheed uusan ogeyn oo ahayd odayga tii uu ka xanaaqay xiriirka dheere dhowrka sano soo socday ee gabadhiisiyo ninkan u lahaayeen isaguna uusan war ka haynin uusan markii u horreysaba wiilkan kasoo doonanin gabadhan aabaheed kasoo doonan marka wuxuu ku yidhi taa waad ku khaldantay kaa hoos baxday xaaladdu hadda halkay marayso wuxuu ku yidhi waxaad u baahan tahay shaqo wanaagsan inaad raadsatid oo dhaqaale fiican samaysid inaad raadsatid dad wanaagsan oo looga qaateena mansab iyo maqaam leh odaygu uu war ka maqlayo oo kuula hadla gabadhana kuula doona oo ugu horeeyo imaamkii lagu yidhi ordoo waraaqda ka keen maadaama odaygu imaamkan aaminsan yahay imaamkana inaad soo barididood ku dhahdid gabadhaasaan doonayaay kaalayo ilo doon dad markaa odaygu uu wax ka qaadanayo inaad u keentid oy gabadha kula doonaan taasuna waa mid intaa unbaad wax ku heli kartaa haddii markaa wuxuu yidhi aad doonatid laguu diidana duco waxaan ahayn oo kaleod samayn karta male wax kaloo ka khayr badan baa laga yaabaa in ilaahay ku siiyo waxaa dhacday markaa inuu markiiba ku dhaqaaqay inuu dad ururiyo odaygu wax ka maqlayo gabadhii mar labaad doonto mar labaad buu gabadhii doontay odaygii wuxuu ku yidhi gabadhayda inaan ku siiyo cerkaa kaaga dhow wuxuu ku yidhi maxaad igu diidaysaa oo aad yacni aad dhahaysaa dee waxaasaan kugu diiday marka wuxuu ku yidhi waxaan kugu diidayaa odayaashii meesha joogay iyo nimankii uu keensadayna waxay ka markhaati kaceen dhammaantoodba wanaagga wiilkan yarka ah uu leeyahay saliim inuu yahay wiil wanaagsan oo akhlaaq leh oo idab leh oo aan balwad lahayn oo aan saaxiibo xun lahayn waxbarashada aada ugu fiicnaa shaqo fiican haysta nin gabadh lagu darsado oo ka mudanna uusan magaaladaba joogin dhallinyarada ficiisa marka loo fiiriyo laakiin odaygii wuxuu yidhi waxaan kugu diidayaa sideen gabadhayda u siistaa nin aabihiis dembi horay u galay oo xabsi galay dembigaasoo weliba ahaa muqaadaraad iyo maandooriye marka wuxuu ku yidhi adeer anigu waxaan ahay shakhsiyan unbaad mataqaanaa igu xukumin kartaa aabbahay waa shakhsi iga gooniya aabbahay hadduu dembi galay anigu dembi ma gelin aabbahay hadduu muqaadaraad isticmaalay anigu muqaadaraad ma isticmaalo aabbahay hadduu xabsi galay anigu ma gelin qofka gabadha kaa doonanayana waa aniga marka wuxuu ku yidhi aabbahay taariikhdiisa anigu waxba kama bedeli karo laakiin anigu qof wanaagsan baan ahay laakiin odaygii hadal dheer kadib gabadhii wiilkii wuu diiday halkii baa lagu soo kala tegay niyad jab baa ku dhacay ninka la yidhaahdo saliim salmiya saliim waxay ku kulmi jireen markii u horreysay la isku diiday wixii ka dambeysay dhuumasho si abay u kulmi jireen taleefonna way iska maqli jireen marka markii labaad ee loo diiday wixii ka dambeysay waxaa wiiqmay waxaa meesha ka baxay gebi ahaanba kulankii ay dhuumashada ku kulmi jireen ayaama yar dabadeedna waxaa meesha ka baxay xidhiirkii faraha badnaa ay taleefonka ku wada hadli jireen waxaa laga yaabaa ayaama kadib inay hal mar ismaqlaan wiilku markuu iyaduna way sheegto waxay ku tiri cadaadis badan baa la isaaray guriga kama bixi karo isma arki karno marka siday inoogu suurta gasho taleefonka un baynu ka wada soconaynaa taleefonkii ka wada socon jireen ayaamo taleefonkii iyo xidhiirkii taleefonkana uu weeqmay isaga waxaa ku dhacay niyad jab maalinkii dambe gabadhu waxay gaadhay heer ay wiilkan taleefon ka qaban weydo fariimahan ay uga jawaabi weydo waxaa laga yaabaa inuu usoo diro 100 fariimood ama 1000 fariimood inay hal fariimo kasoo jawaabto inta kale aysan u jawaabin maalmo dabadeed baa wiil ay isaga saaxiib ahaayeen wuxuu u sheegay salma in uu soo doonay nin dhalinyaro ah oo lacag leh oo reer ladan ka dhashay aabaheedna uu u ogolaaday mar dhowna uu arooskoodu dhici doono saliim intaa markii uu maqlay wuu isku dhex yaacay meel alla iyo meel uu arrin kaga hagaaguu garan waayey wuxuu wacay sida caadada ahayd gabadhii wuxuu u diray fariimo tira dhaafa salma umay jawaabin taleefon kamay qabanin markii dambe waxaa dhacday inay taleefonkii marbay taleefon ka qabatay markay taleefonka ka qabatay waxay u sheegtay in aan cidna soo doonanin warkaa uu maqlayna ay tahay waxba kama jiraan intaa kaliya markay isdheheen taleefonka waa ku jirtay marka xoogaa isagii maadaama oo gabadhu ay warkaa u sheegtay wax yar buu yaro qancay laakiin 100% ma qancin shaki baa ku jiray oo wuxuu islahaa amay wax kaa qarinaysaa gabadhii taleefonkii way bedelatay isagu kama daalo inuu waco taleefonku wuu dansan yahay fariimuhu u diro cid ugama jawaabto xaaladda noocaasa markii uu muddo ku jiray haddana
baa maalinkii dambe wuxuu wacay gabadha hooyadeed oo uu number ka hayay maadaama waagii hore gabadha hooyadeed ay isku fiicnaayeen gabadha markii hore uu jeclaa maamadu la ogeyd xidhiidhka intuusan doonanin maamadii wiilka xidhiidhka ka dhexeeyeen oo xidhiidh qurux badan ahaa maamadii buu wacay wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa gabadhaada inaan la hadlo marka wuxuu ku yidhi miyaa lasoo doontay gabadhaada waxay ugu jawaabtay gabadhayda waa lasoo doontay waa loo faraantigeliyey mar dhowna arooskeedaa dhacaya ee hadduu allaha alla yahay dib dambe ha noo soo wicin gabadhaydana ha kasoo horbixin na nabadgeliyo nadaa bay ku tiri taleefankiina way ku jirtay intaa marka ay ku samaysay Saliim oohin buu afka jabsaday wuu iska murugooday dhowr ayaamood wuxuu ku jiray qolkiisa kama soo bixin ma seexanin cunto fiican ma cunin waxay u ahayd murug oohin waxna ma samayn karo waxba ma qaban karo wax alla iyo wuxuu ka qaban kara male gabadh aabaheed u tashaday dee oo nin ku darsanayo dhanka kalena gabadhii laftirkeedii war uu ku qanco aysan siinin oo aysan ku dhihin waan guursaday waa la guursaday waa la isoo doontay arooskayga mar u dhacaya waxba aysan ku dhihin oo gabadhii meel uu ka arka uu laayahay meel uu kala hadlana uu laayahay xal guriga gabadha iyo reerka ma tagi karayo wuu xanuunsaday dhowr bari markuu gurigiisa ku jiray wuu xanuunsaday aad buu xanuunsaday heer hooyadii intay qaaday ee isbitaal geysay isbitaalka marka la geeyay isbitaalka 3 bari buu ku jiray xoogaa markuu soo fiicnaaday isbitaalka laga soo saaray xaaladda wiilkeedana hooyadan ay aragtay waxay ku tiri waxaan kuu dirayaa cimrada saad soo cimraysato beedka ilaahay aad maskaxda iska soo degso bal in ilaahay wax khayr qaba kula kulmiyo ama qalbigaaga holaca ka shidan ilaahay ka damiyo cimrada loo diray Saliim cimradii buu aaday muddo yar dabadeedna wuxuu dib ugu soo noqday dalka Kuwait markii uu sida u soo noqday sida caadada ahayd kama daali jirin gabadhan inuu fariin u diro kama daali jirin in uu gabadhan waco shaqada kaliya uu hayo waxay ahayd xataa shaqooyinkiisii iyo danihiisii uu seegay kaliya gabadhan inuu waco iyo gabadhan inuu fariin u diro iyaduna muddooyinkii dambaba kama numberkii way ka bedelatay oo waxa uu dirayay waxaas uu wacay ma bagaadayaan haddii arki jirtayna uma soo jawaabi jirin wuxuu tala ku gooyay markaa si uu hal mar u arka xataa uu iyada afkeeda warka sida wax u jiraan uu uga maqlo gabadha gurigooda hortiisa intuu ku sugo markay soo baxdo inuu daba kaco oo raaco wuxuu yimid Salma gurigoodii buu yimid guriga hortiisa iska fadhiistay markaa abaar buu guriga agtiisa iska fadhiyay markay soo baxday buu soo raacay wuuna istaajiyay waxay ku tiri markaa waxaan ahay gabadh mar dhow la aroosayo oo la soo doontay mana doonayo fadeexad iyo ceeb ee wadadayda iga leexo maalin dambana ha iga soo horbixi asagii inta markuu maqlay afkeeda ka maqlay wuu xanaaqay wuxuu ku yiri ninkaad ka sheekeynaysa maxay tahay miyaynaan ballan lahayn miyaynaan laba qof oo isjecel oo axdi wada dhigatay ahayn marka waxay ku tiri adigu waxaad ku nooshahay khayaalkaaga oo ah gar iyo gardarraba inaad aniga helayso waaqicuna sidaa uu ka dheeryahay hadday aniga ahaan lahayd wax igu xidhan inaynu labadeenu ishelno waynu isheli lahayd mar hore isguursan lahayd aniga wax igu xidhan maaha aniga aabahay nin buu igu daray aabahay kama hoos bixi karo reerkayga dhinac u dhaafi kari maayo reerkaygu way ii tashteen aabahay nin buu igu daray ninkaasaan mar dhow is aroosaynaa aniga adiga xiriirkeenina intaasuu ku ekaa waxaan kaa raali gelinayaa dhaawac walbaan kuu geystay wax walba oo dhexdeenna ahaana halkaa ku ilow waxaa jirtay marka lacag hadda ka hor ay iyadu daymisay isagu ka deensaday waxay ku tiri lacagtii daynta ahaydna waa kuu cafis oo waa hadiyad aynu iscafino maanta kadibna halkaa aynu ku kala tagno aynu iska soo horbixi adna taada raaca adna taydan raacanaya waa iskaga tagtay marka intaa markay ku tiri isagii wuu qaraacmay wuu murugooday intii iyo murugadii iyo oohintii hore unbay ugu sii darmatay nin kale oo ah inuu gabadhii soo arkay oo iyadu afkeeda uga sheegtay in la guursaday ee iyadu afkeeda uga sheegtay in muddo yar dabadeed ay nin kale aroosayso xiriirkoodina uu intaa ku ekaa ballamihii ay kala qaateenna ay noqotay halbacaad lagu lisay wuxuu ogaaday markaa gurigoodii buu iskaga soo noqday wuxuu ogaaday waqtiga gabadhan arooskeedu dhacayo go-aan wuxuu hoosta ka xariiqday wax walba oo ay ku qaadato xataa haddii uu dhinto uu ku dhimanayo gabadha arooskeeda inuu baajiyo wax walba uu ku baajin karo wuxuu ogaaday goorta uu arooskeeda dhacayo iyo goobta uu ka dhacayo oo ahaa aqalka gabadha muskoolad buu soo iibsaday wuxuuna yimid gurigii gabadha Salma gurigeedii markuu yimid dadkii arooska lasoo martidii arooska kasoo qayb gashay buu ka mid ahaa
ciduma may qaban markaa uu soo dhawaaday markii uu yimid meeshii arooskii aroosadu ay taagnaayeen buu gabadhii dhowr xabadood ku dhuftay dhowr xabadood markii uu ku dhuftay halkii bay ku dhacday isagiina wuu cararay dadkii marka arooskii dee markiiba waa la isku yaacayo xabad baa dhacday iyo aroosadii waa dhaawac iyo waxbaa la yidhi oo gabadhii baa lasoo qaaday markiiba isbitaal baa loola cararay nasiib darro gabadhii way dhimatay oo naf isbitaalka lamaysan gaadhin isagana siduu usii socday maxay markii u horreysay xabaduhu dhaceen dadka xaggii gabadha ay u yaaceen waa la wada naxay cidba may qaban qofkii xabadda riday isaguna markiiba guriga wuu ka cararay meel fogba ma aadin isuu usii socday wuxuu tegay xarunta booliska buu tegay saldhigga boolisku tegay isagoo biskooladiisii wata wuxuuna ku yidhi gabadh aan jeclaa baan soo dilay waxaan doonayaa in la xidho waa la xidhay waxaa la saaray maxkamad baa la saaray maxkamaddii ayaama dabadeed marka hooyadiis baa intuu isbitaal ku jiray xabsiga ku jiray maxkamadda loo ballaminayay loo ogolaa inay la kulanto markii uu gabadha dilay baa ugu dambeysay inuu qof caadiya ahaadaba hooyadii way u timaadaa way un aragtaa mooyaane ilmo unbaa ka daadanaysa laakiin nin hadlaya iyo nin nool ma aha waa qof isaguna qof dhintay unbaa lagu tirin karaa maxkamaddii maalinkii dambe waxay ku xukuntay dil daldalaada maadaamuu si kasa u dilay de gabadha dil daldalaada markii ay ku xukuntay isla markii xukunku dhacayay gabadha aabaheed maxkamadda wuxuu ka dhex lahaa gabadhiina way dhimatay allah naxariisto waa la aasay haddii aan ogahay ama aan ogaan lahaa inay intaasu dhacayso gabadhan iyo wiilkan waan isku dari lahaa bal muxuu iskugu dari waayey soo imtixaan maaha isagu qofka isu diiday wiilkan iyo gabadhan isu diiday ee wadgeed dheer iyo ku gaabanba loo fuulay soo isaga ma ahayn wiilkii halkiiba waxaa lagu xukumay dil daldalaada waa la dilay gabadhiina sidii bay ku dhimatay odaygan wuxuu waayey gabadhiisii wiilkana wuxuu waayey gabadhiisii gabadh uu jeclaa naftiisiina wuu waayey aabbahanu hadduu markii u horreysay gabadha laga soo doontay haddii uu diiday xataa markii hore mararkii dambe wiilkanu gabadha kama daalin inuu kolba soo doonto waxay ahayd inuu iska siiyo midda kalena xidhiidhada noocaasee dheeraada inta badan xidhiidhada noocaasee dheeraada dhibaato badan bay leeyihiin marka dadku riyo isla dhistaan iyaga labadooda keli ah iyagoon ku xisaabtamin waxyaabo badan oo la isku diidi karo ma aha qisadan waxaa jira qisooyin lamida oo ka dhaca soomaalida dhexdeeda ka dhaca iyadoo soomaalidu ay isku diido dadkaas waxyaabo kalaaba laga yaabaa inay xooliyo xun isku diidaan laakiin inagu xataa qabiil baynu isku diidnaa waxaa laga yaabaa qof inaad la socoto labadii qof oo xataa aan la dhihi karin mid ka mid ihi wuxuu ka dhashay qabiilada soomaalidu ay maaragtay faquuqdo buu ka dhashay aan la dhihi karin oo qabiil caadi oo qabiilada kale aan la faquuqina ka dhashay waxaa dhacda in labadii qabiili isdishabal wiilkii gabadhii wada socdaa oo axdii wada dhigtay oo inay isguursadaan kaliya u dhiman tahay inay colaadi dhex marto dabadeedna labadii qof sidaa lagu kala geeyo xidhiidhada noocaas ee daba dheeraada labada qof kaliyana dhexdooda ah dhibaatooyin badan buu leeyahay haddii reerku uun ogaan lahaayeen aabahaasoo kale hadda haddii uu ogaan lahaa wiilkan iyo gabadhan xidhiidhka ka dhexeeya ilaa intaasba wiilkan iyo gabadhan inaysa isla gaadhin baa laga yaabaa oo ama ay isku dari lahaa hore iskugu dari lahaa la dhihi lahaa gabadha soo doona ama banaanka ka mar la dhihi lahaa waxaan leeyahay markaa war qalbiyada dadka ha loo ilaaliyo waa inaa muuqaalka kan xiga insha allah nabadii caafimaad baan idinka tegay assalaamu calaykum